السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti kale oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal maanta waxaan runtii idiin wadaa fursado aad dahabi u ah fursado aad qaali u ah oo ciddii garanaysa kaliya run ahaantii qiimihiisa ay fahmi doonto waxay ka kooban yihiin 4 qaybood 3 ka mid ah waa master scholarship ah haddaba dalalku waxay kala yihiin midda koowaad waa dalka Australia midda labaad waa dalka Canada midka saddexaad waa dalka Belgium midda afraadna waa dalka Rwanda halka dal baa wax Afrika ah ku jira laakiin saddexda kale mid waa Canada midna waa Australia wad garanaysaan midna waa Belgium oo Europe ku taala afartu waran ahaantii ma kala dhacaan fursadaasan maanta idin wada mid kasta magaciisa iyo waxyaalaha laga rabo iyo goorta uu dhacayo baan la wadaagi doonaa kadibna linkiga ayaan idin tilmaami doonaa barta aan idin dhigayo ku soo dhawaada waxaan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku bilaabaynaa dalka Australia sida shaashadin ka muuqata barnaamijkan waa scholarship dhammaystiran waxaana loogu talagalay sanadkan 2025 waa duruusta bilaaban doonta sanadka 2026 inkastoo systemkiisa qayb ka mid ah 2025 uu bilaabanayo saadaradeed fursadani waxay dhici doontaa isla sanadkan bishan aan ku jirno August 31 ayuu dhici doonaa sida shaashada idinkaga muuqata ayuu dhici doonaa waa wajiga koowaad waxaana qayb u kala qaadeen waddanka internationalka ah waxaa xusid mudan dalalkaas Soomaaliya way ka mid tahay Afrika oo dhan baa ka mid ah adoo dunida oo dhan sidoo kale qayb kale waxaa jirta isla bisha October 31 dhici doonta laakiin waa maxay waa dadka dalka Australia gudihiisa jooga ama iyaga u dhashay way si kala qaadayaan laba ay u kala qaadaan kuwa waa kuwa dalka aan u dhalan laakiin Australia jooga kuwana waa kuwa dalka u dhashay oo Australia laftigiisa jooga marka waxay ahaataba inaga waxa inaga qusaysa tan 31 August bishan lagu jiro 31 dhici doonta way tan hadda aan ka hadlayno barnaamijkan markaan yarata taabano jaamacadda bixinaysa anu baa loo soo gaabiyaa waxay ka mid tahay 10ka ama muxuu ahaayay jaamacadaha dalka Australia ugu qiimaha badan ama ugu tayada wanaagsan ayay ka mid tahay waliba caalamiyan xataa marka loo fiiriyo waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu tayada iyo qiimaha wanaagsan haddaba scholarshipkan masterka meelaha ama kuliyadaha uu bixin doono la rabo qofku inuu si gaar ah u eego ama asaga laga rabo inuu noqdo mid bixiya waxay tahay sida halkan idinkaga muuqata waa kuleejyadaas halkaas idinka muuqda hagaag sidaan idin sheegayba scholarshipkan masterka ah lacagtiisa gebi ahaanba waa lagu qabaa tigidhka diyaaradda ku raacaysa ha ahaato muxuu ahaayay si socod iyo soo socod ha ahaato Australia marka tagtid kharashka waxbarashada aad ku baranaysa ha ahaato cuntada ha ahaato waliba waxa laga yaabaa in lacag lagu sii daro halkan waxa wax yar ku jiri karta mararka qaar kood in dadka qaar markii ay soo apply gareeyaan loona eego lacagaha ku baxaya ama tayooyinka scholarshipka maadooyinkiisi isaga hoos tagay xoga somehow waxa dhacda mararka qaar kood hadii dhibcihii la rabay sidii la rabay uu soo buuxin in lagu dhaho percentage qayb kamid iska bixi laakiin halkan hadda waxa ku cad in gabi ahaanba laga bixin doono gabi ahaanna waxa lagu yiri adduun lacageed oo intaas la eg ayaa ku bixi doonta sanad walba marka lacag yar run ahaantii ma aha waxyaalaha laga bixin doono waxa kamid ah air ticket-kii baa kamid ah oo sidoo kale relocation-ka lagu sameeyay macnaa waa maxay si socod iyo soo socodba waa laga bixin doona dalka markii loo geeyay aad ku baratid hadii de qof adigu xirfad leh oo hawsha fursada garan kara qiimaheeda hadii aad tahay waxa ku fududaan karta inaad dalkiisii joogto waxa kale oo ku fududaan karta inta wax baranaysid in hadii wiil aad tahay xaaskaaga aad keensatid hadii gabar aad tahayna in lamaanahaaga aad keensatid hadii laakiin fursadaha noocaas aad ka faa'iideysan waxa halkan ku qoran in dib lagu soo celin doono dalkaaga aad ku soo laaban doontid waana heshiiska lagu la gali doono waxa kale oo lagu qabaa halkan sida idinkaga muuqata allowance baa lagu siin doonaa lacago adiga si gaar ah lagu siin doona baa jirta oo bil walba lagu siin doono
sidoo kale waxyaalaha waxbarashada la xiriira waa lagu siin doonaa kusii dheeraan mayno si waqtigu noogu koobnaado barnaamijkan waa fursad qaali ah xaqiiqatan waxaana la rabaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan maadaama fursaduhu runtii sida la rabay aysan u soo gaarin halka waxaan ugu gudbayaa marka dalka Australia hagaag fursadda labaad waxay tahay waa fursad dalka Canada laga siin doono oo iyaduna ah si buuxda ayaa dalka Canada waxaa lagu damaanad qaadayaa in lagu geeyo waa full scholarship taasoo master ah iyaduna qaybaha masterkan laga rabo inaad sida gaarka ah la rabo inaad uga sii baaraan degtid baa waxay tahay saddex halkan kaga muuqata waa nutrition waa public health waa public policy waa afraadna waa sustainable agriculture afarta qaybood ayuu masterkani diiradda saaraya dalalka loogu talagalay waxaa ka mid ah Soomaaliya maadaama sub-Sahara Soomaaliya dawladaha kulansada ay ka mid tahay waxyaalaha marka lagu qabo saan idin sheegayba waa dhammaan lacagtii ku baxaysay safarkaaga noloshaadii wixii la mid ah waana tana waxyaalaha uu scholarship-ku ku qabo waxaa ka mid ah kow in horta academic oo dhan laga bixin doono dhammaan lacagaha la xiriira waxbarashadaada oo dhan dalkaas ku qaba sidoo kale waxaa lagu qabaa kharashkii aad ku noolaan lahayd oo maxaa ka mid ah housing-kii baa ka mid ah waa gurigii meeshii aad degi lahayd waxaa ka mid ah sidoo kale cuntadii oo mealiskii ah sidoo kale waxaa ka mid ah lagu yiri waxaa lagu siin doonaa health insurance waa runtii qodob aad muhiim u ah caafimaadkaaga hadaa xanuunsatid iyo wixii la xiriir caafimaadkaaga oo dhan waa lagu qabaa waxaa kaloo lagu qabaa baa lagu yiri oo qodobka saddexaad ah travel support oo waa maxay dalka Canada markii aad aadaysid iyo markii aad ka soo laabanaysid bal labadaba waa lagu qabaa hal senti lagu weydiin mayo sidoo kale waxaa lagu qabaa baa lagu yiri research-ka markaad sameynaysid laptop-kii aad isticmaali lahayd run ahaantii waa qofkii garan kara uma garan kara fursadda noocan ah laptop-kii computer-kii xataa markaa research-ka aad diyaarinaysid aad ku diyaarsan lahayd waa lagu siinayaa sidoo kale waxaa lagu siin doonaa baa lagu yiri fursad lagu siin doonaa in aad ka qayb qaadatid waxyaalaha la xiriira leadership-ka hoggaanka horumarintiisa barnaamijyada la xiriira kuwaasoo ku salaysan baa lagu yiri community basic projects mashaariicda la xiriira bulshada si gaar ah ayaa adigana waxaa muxuu ahaay fursad lagu siin doonaa inaad ka qayb qaadatid oo xirfadaadii la xiriirtay aad sare ugu sii qaadid runtii waxyaalahaas oo dhan waxaa weeye waxyaalaha uu ku qabo scholarship-kani weeye waa fursad dahabiya oo runtii shakhsi kastoo muwaadin Soomaaliyeed la rabo inuu ka faa'iideysto ama dalka ha joogo ama meelaha kale ha joogo waxaa kaloo fursad ah haddii Soomaali aad tahay laakiin baasaboor Kenyaati ama Ethiopian aad haysatid ama Ugandese aad haysatid waad ka faa'iideysan kartaa waa fursad marka dahabiya yaan la dayicin muwaadin kastoo Soomaaliyeed oo fursaddan run ahaantii raba inuu ka faa'iideystana fadlan gaarsiiyo qof kasta qofka kale ha gaarsiiyo waayo waxa weeye waa fursad run ahaantii aan la dayici karin halkan waxaan u gudbayaa fursadda labaad ee dalka Canada si bilaash ah aad ku tagi kartid si bilaash ah aad ugu noolaan kartid si bilaash ah wax ugu baran kartid aad ugu noolaan kartid aad ugu sii joogi kartid aad ugu sii baaqi ahaan kartid marka fursaddaasna ayaan la dayicin hagaag taasina waxay ahayd dalka Canada waxaan u gudbaynaa marka saddexaad ama fursadda saddexaad ee la rabo inaad ka faa'iideysataan baa wuxuu yahay dalka Belgium idin tilmaamaya dalka Belgium noloshiisa sida ay tahay dalkaas isaguna scholarship ayaa ku yaala u baahan in aad ka faa'iideysatid haddaba dalkan Belgium fursaddan waxbarasho ee iyaduna full funded ka ah waxoogaa yar waa la xadiday waxaa runtii la rabaa oo bulshooyinka Soomaaliyeed la rabaa inay maanka ku hayaan ayaa waxay tahay dalalka loo ogol yahay dadkoodu inay fursaddan qaaliga ah ka faa'iideystaan nasiib darro Soomaaliya kuma jirto waxaa ku jira Benin Burkina Faso Burundi Bolivia Cambodia Cameroon Cuba Ethiopia Ecuador Guinea Haiti Asia Indonesia iyo Kenya iyo Madagascar marka dalalka kale way badan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan si gaar ah u kor istaago Kenya iyo Allahu musta'an dalka Ethiopia shacabka Soomaaliyeed dalka Kenya shucubta ku nool kama liitaan kama aqoon yara
sidoo kale dalka Ethiopia shucuubta joogta Soomaaliya ama muwaadinka Soomaaliyeed kama aqoon yara, kama xirfad yara, kama ilbaxsan yara, kama taya yara, kama muxuu ahay aqli yara. laakiin waxa lagaaga rabay fursadan qaaliga ah ayaa waxay tahay in dalkaagi in systemka dawladahan ay buuxiyeen uusan buuxin karin. waxaa la rabaa marka in muwaadin kastoo Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed wax saameyn ku yeelan kara in institutionka loo adkeeyo. madaxweynaha dalka madaxda ka ah uu ka tagi karaa, baarlamaanku way isbedeli karaan, laakiin waxa ummadda iyo shacabka faa'iidada u ah baa waxay tahay walaalayaal, la rabana inuu qof kastoo muwaadin oo dhiig iyo damiir leh la rabo inuu fahmaa waxay tahay in institutionka dalka loo fariisiyo, in systemka dawladnimo loo fariisiyo, in hab nidaamka dalka uu ku shaqeynayo loo fariisiyo. madaxweyne markuu yimaado uusan dalkii dib u baabi'inine systemkii iyo kala dambeyntii iyo habsami u socodkii jiray inuu horay u sii qaado, si ummaddu ay mar kastaba u dareento war madaxweynuhu 100 madaxweyne ha isbedelaan ma xuma, laakiin in madaxweyne kastaba wax uu dalkii horumar uga tago, si shacabkan masaakiinta ah ee dulman ee dulaysan ee dadkiisu ay duleeyeen ee meel kastaba inkaarta uga dhacday in ay hana qaadaan oo caalamka kale ay la jaan qaadaan oo la xifaaltamaan oo la loolamaan. taasaa waxaa rabaa marka muwaadin kastoo damiir leh in uu qalbiga ku hayo, riixo, garab u noqdo, iskuna dayo in xaaladda noocaas caalamka kale aan looga harin. waxyaalo boqolaal ah ayaan caalamka uga dambeynaa, laakiin tacliintii fursadda dhalinta Soomaaliyeed ee caalamka kale kula loolami lahaayeen in system dalka ka xumaaday awgiis in cunug ficiis ah ama wiil ficiis ah ama gabar ficeed ah in gabadha Soomaaliyeed ay uga hadho oo ay uga liidato oo looga yaso oo looga bahdilo ma aha wax u qalma. marka muwaadinka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa in xaaladda noocaas ah uu ku baraarugo oo uu fahmo. dalkan marka fursadda noocan ah ee dalka Belgium lagu tagayo muwaadinka Soomaaliyeed noocu doonaba ha ahaadee kama faa'iideysan karo, laakiin haddii muwaadin Soomaaliyeed ah tahay laakiin dalalkan kale meeshan ku xusan midkood aad baasaboorkiisa aad haysatid, gaar ahaan Kenya oo kale ama Ethiopia oo kale aad haysatid, dabcan waad ka qayb qaadan kartaa, waadna ka faa'iideysan kartaa. muwaadinka Soomaaliyeed ee kale ee baasaboor Soomaaliga haystana runtii waa u tacsiyadeynaya, aad baana leeyahay waan uga xumahay. haddaba qaybaha barnaamijka uu ka kooban yahay walaalayaal waa kuwana master area marka la eego qaybahan uu ka kooban yahay idinkaas si fiican u sii eegi doona. areaska waxaa kaloo jira oo master muxuu ahay fursadan scholarship ka ah ee masterka ah runtii u sii dheer baa waxay tahay qaybo training ah oo dadka si gaar ah iyagana looga dhisi doono haddii aad dooratid, iyadoo innovation iyo internship iyo qaybo badan uu asna muxuu ahay ka kooban yahay. haddaba guud ahaan barnaamijkani waa master scholarship iyo training internship ah oo labadaba lagu qabo lacagtooda iyo wax kasta oo ku baxaya, iyaduna waa dalka muxuu ahaay Belgium. criteria-da lagu xulanayo qofka halkaan ay kugu xusan yihiin. haddii aan sii dhexgalno sii sharaxno xogaa muuqaalka waqti dheer naga qaadanaya maadaama aan rabno barnaamijyo badan inaan kor istaagno. saa daraadeed waxaan u dardaaramayaa muwaadin kastoo Soomaaliyeed in fursadan haddii baasaboor Ethiopian ama Kenyaati uu haysto in uu ka faa'iideysto. muwaadinka kale Soomaaliyeed fursadda isaguna ka faa'iideysan karaa, isagana inaad la wadaagtaan. halkaana isagana waxaan uga gudbayaa fursadan kale dahabiga ah ee dalka Belgium aad waxbarashada bilaashka ah uga heli kartid. hagaag haddii haddaba aan kasoo gudubnay fursaddii Australia, Canada iyo Belgium, waxaan u gudbaynaa arrinka u dambeeya oo ah dalka Rwanda. isaguna waxaa ka jirta runtii fursad qaali ah oo halkan idinka muuqata, waa youth consultation. dhalinyarada dalalka Africa iyagana waan arki doonaa ayaa runtii fursad waxaa loo siiyey dalkaas Rwanda inay isugu yimaadaan kadibna laga tashado. oo maxaa looga tashanayaa arrimo runtii halka hoose aan ku xusi doono oo diblomaasiyadda iyo dalalka horumarkooda la xiriira. haddaba dal kasta oo dalalkan fursadda u heli doona ka mid ah waxaa loo ogol yahay 2 qof oo ka mid ah in dalkaas inay ka yimaadaan 2 qof inay ka yimaadaan. dhalinyarada loo baahan yahay ee dalalkaas ka iman doonana wadartooda guud waa 20, hase yeeshee waxay noqon doonaan dal kasta waxaa matali doona 1 gabar iyo 1 wiil baa matali doona. wuxuu dhici doonaa
isla sanadkan bisha September 24teeda wuxuuna ku dhamaan doonaa 26deeda ayuu dhamaan doonaa. hagaag barnaamijkan waqtiga uu dhamaan doono ee uu dhici doono waa isla maanta muuqaalkan aan duubayno. haddii maanta aad muxuu ahaayey runtii aad kadib dhacdid barnaamijkaas wuu ku daayay. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso istiraadid maxaa barnaamijka haddii fursaddan aad ogeyd walaal mar hore maxaa noogu soo sheegi weyday. laftigaygu maantaan ogaaday isla maantaana idiin soo duubay muuqaalka si aad uga faa'iidaysataan. isaguna waa barnaamij kaloo runtii asna muhiim ah, la rabana muwaadinka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed, wiil iyo gabdhaba in ay ka faa'iidaystaan. haddaba dadka ka faa'iidaysan kara barnaamijyada dadka lagu dooran doono waxaa ka mid ah dadka la soo shaqeeyay UN-ka, waayo nabadda iyo khilaafaadka iyo bulshada wax u qabashadeeda badanaa arrimahaas runtii badanaa la xiriira. marka qofku markuu meelaha ka soo shaqeeyo wuxuu u dhuundoleelaa ama cilmi fiican uu u haystaa ama ka haystaa arrimaha la xiriira ama saameeya bulshooyinka Afrika gaar ahaan. saa daraadeed marka barnaamijkaas aad buu asaguna muhiim u yahay. dhalin kastoo Soomaaliyeed oo qaybaha ka soo shaqeysay hay'adaha localka ah, institutionada nabadda muxuu ahaay oo ololeeya ama dawladda u soo shaqeeyay ayankan way ka wada muxuu ahaay faa'iideysan karaan. waxyaalaha lagu xulanayo ayayna ka mid tahay. marka isaguna barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah oo haddii aad rabtid inaad ka qayb qaadatid waa ka qayb qaadasho kaliya 2 maalmood maadaama lacagta lagu qabo dee just inaad shuruudaha buuxisid unbaa ka xigta. waxaa kaloo muhiim ku ah badanaa UN-ka markay dadku ka shaqaynayaan dadka waxyaalaha lagu doorto waxaa ka mid ah ee dadka kale looga doorto inuu yahay qofku qof bulshada u soo shaqeeya isla markaana eventska noocan ka ah, eventga ama dhacdooyinka noocan ah ama kulamada noocan oo kale ah ama barnaamijyada noocan oo kale ah ka soo qayb qaatay. marka qofkii adiga laga yaabay inuu ka level sareeyay dhinaca aqoonta, tusaale ahaan master ama double master haystay ayaa waxaad kaga hormari kartaa adoo batch haysta ama degree haysta in adi lagu doorto. oo sababtu waa maxay? barnaamijyada noocan ka soo qayb qaatay baad leedahay. marka barnaamijyada African Unionka haddii aad ka qayb qaadatay muxuu ahaay midowga Afrika barnaamijyada ee la xiriira dhalinyarada, haddii aad ka qayb qaadatay, haddii aad nabadda ka qayb qaadatay, haddii ammaanka aad ka qayb qaadatay, haddii kulli waxaas oo dhan aad ka qayb qaadatay, waxyaalaha lagu xulan karo ayay ka mid tahay. barnaamijkaasina waa barnaamijka afraad ee maanta aan idiin soo gudbinayay. dhammaan barnaamijyada afarta ah ee runtii muhiimka ahna linkiyadooda qaybta muuqaalka ka hooseysa ayaan idiin soo dhigay. halkaas ayaad muxuu ahaay ka tixraaci doontaan dhammaanteen oo isku duuban. gabagabadii marka waxaan leenahay walaalayaal barnaamijyada ha laga faa'iidaysto. ummadii kale ee is leedihiin way u baahan tahayna ee anagoo aanan gaari karinna muxuu ahaay u gudbiyo, u shargareeyo, gaarsiiya iyagana si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. akhyaarta TikTok-ga naga daawanaysa iyo akhyaarta Facebook-ga naga daawanaysa muuqaalkan uu ka soo gaaray fadlan YouTube-keena booqda, isaga muuqaalka hoostiisa ayuu linkigu idiin yaalaa. maadaama laga yaabo inaanan YouTube-ka Facebook-ga aanan soo dhigin, TikTok-gana uusan badanaa linkiyada uusan aqbalin. dhammaanteen oo isku duuban waxaan idiin leenahay guul wacan ayaan idiin rajaynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.